nabaddu waa geed harweyno lagu wadaagamahaye colaaddu soomayna baadeen gurboodkeennii dhammaaday waliba badda lagu kumaaday tahriibtu soomayna baadeen soomaaliyey garadantaado gacal shisheeye waxna nooma gooye noqda gacal walaala tahriibtu waa aafo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ku ah dhabarjab mid dhalinyaro iyo mid bulsheedba runtii marka waxa la is oran karaa waa aafo bulsheed u baahan xal guud in laga gaaro waxaana la kulmaysaa si joogto ah dadka ay saameynta ku yeelatay dad badan baan arkay oo qoysas ah waxay u saameysay qaab hanti ahaaneed waxa laga yaabaa faamilku inay guri leeyihiin ama boos leeyihiin sida hadda loo wada soconana waagi hore waxa dhici jirtay in dadka tahriibta loo ururiyo laakiin hadda ma jirto marka qoysku waxay sameynayaan hantida ugu dhow marka ay leeyihiin bay gadayaan hooyadu haday dhaga yar xataa xirantay way gadaysaa way xaraashaysaa hanti ahaan bay u saameynaysaa sidoo kale waxay u saameynaysaa maskax ahaan oo qofku waalidkii wuxuu markasta ku koongareysan kuwa u joogo si uu ilaalin lahaa يعني والول بدن شن هبين iyo shan maalmood oo kale baanu saxari cirkii dhulkaasi soo dhalinyarada haraadka dumarku halkan ay wadnaha dhacay sonkor baasitay dumarkii qaybtan baan ku dhuuyay sonkorta markay dhacaan waa markan caagad saacadayda waxaan siistay caagad biya moolkayga waxaan siistay caagad biya kiin waan ku fakiray nolosha Ilaahay baa laakiin inaan dhimanayo dambina aan ka soo galay naftayda iyo maalkayga iyo wadkayga iyo dalkayga iyo waxba baan aaminay dhulkaas oo dhan Soomaali baa meyd wada taal wala xaarxaaraya jidka amaraysa xataa dadka lagoodi baa ka soo jeeda meel walba martid la fiid dadka ka soo jeeda dad baa goortu dhaawacmo waa la tuuray cidna ma qaad haddaan nabar yar ku gaano cid ku qaadanaysa male walaalka haduu kugu xigo waa ka tagay waxa weeye waa adoo nool waa soo yana tiriyeen ku jirtaa baa laga tagay marka aad bay ugu dhintaa Soomaalidu waayo 20 30 40 meel walba kaan walba 15 20 30 baa ka dhintay dumarada uur leh oo dhimanay xataa kuwan markii inta laba habeen aan meel joogay laba dumar aan ku aas habar kama maqna nin hooyada iyo aabihii ka baroori habar kama maqna guriga uu ku dhashay oo ku barbaaray nin loo xaraash ka daayo hooyada iyo aabaha dhifka ka jooga tahriibta